الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد ضاه الأمين وعلى آله وصحبه طيبين ظاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جزءة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيث ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته طيبين ظاهرين. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه كتابه التنزيل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أما بعد، walaalyaal waxaan aada ugu faraxsanahay maanta biziyaarati shaykhana sheekh uways axmed alqaadiri raximahu llahu tacaala wa ridwaanuhu. walaalayaal waxaa aada loogu farxaa markii la ziyaaranayo owliyada ilaahay markii la ziyaaranayo waxaa soo xaadirta arwaaxdooda. marka waa inaa aada u faraxdaa oo arwaaxdaada dham ayaa baxayso oo waa maqan tahay markii owliyada ilaahay la siyaaranayo. qofka mu'minka quluubtiisa waxa lagu garta weeye. marka waxaan leenahay biziyaarati shaykhana sheekh uways dadku waa ka dharagsan yihiin alcaarifun billaah inuu weli ilaahay oo mukarram ahaa sheekh uways. qof walba wuu og yahay oo hadda qof loo sheegayo ma laha. saasoo darteed waxaan leeyahay dhammaan axbaabta waxa waaye biziyaarati shaykhana meel walba adduunka dacladiisa laga dhigayo. annagana haddii aynu nahay rag ku abtirsado sheekheena sheekh uways axmed, annagana waa dhignay insha allahu tacaala biziyaarati shaykhana. waxaan ilaahay ka rajeynaynaa ziyaaradan ziyaaradeeda kaleeto inuu kheyr iyo barwaaqa iyo nuur iyo bashbash ilaahay inuu nagu gaarsiiyo. oo minka amaatii haddii aan ka hadalno, sidaa ogtiin magaalada daarusalaam la yidhaahdo sheekh uways bay ku baxday. ilaa al-aadaanna wuxuu ku tilmaamay daartii nabadgelyada. ilaa al-aanadan nabad waaye oo min karaamaati shaykhana weeye oo ilaa al-aanadan xaadirka ah ee jirta weeye. walaalayaal waa idin salaamayaa dhammaan axbaabta meel walba ay joogaan alqaadiriya. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.